daweynteeduna wax badan ay u baahan tahay oo ugu horeyso in la faafiyo aqoonta ka waramaysa qaadka waayo ilaa hadda iyadoo qaadka maanta aqoon aad u tiro badan dunida ay ka taalo waxa laga qoray ayaynu inagu haddaynu Soomaalinahay haddana nahay dadka ugu warka yar leh kaba warhaya waa imtixaan inaynu noqono dadka ugu cuno badan haddana inaynu noqono dadka uguba war yar ee bahalkan waxa laga sheegay wax ka og iyadoo aan ogahay qaadku culturally inuu dhex galay culimada Soomaaliyeed kamida baa wuxuu ii sheegayay dhulka qaadka lagu cuno ee Itoobiya iyo Soomaaliya meelaha gaar ahaan Itoobiya inay meel jiraan aan qaadka la cunin ilaa in la weysaysto mooyaane sida muqaddaska u yahay marka la cunayo waa la soo weysaystaa hore marka loo soo yaro durko مثلا jigjiga meelaha la soo gaadho ilaa jigjiga waa yani inkaar qaba loo arkaa qofka caleen qaad dabka ku rida waa ka mamnuuc yani dadka dhaqankooda saa loo qadisayo waxa weyn u yahay dab wax la saari kara haba yaraatee ma hore marka loo soo dhaafay Soomaaliya la yimaado wali sida uu mudnaanta u leeyahay waxaad ka garan kartaa inay masaajidu leeyihiin qol lagu qayilo yani masaajida ku taala مثلا Hargeysa daanan meel kale oo fog ba tagin masaajida qaarkood waxay leeyihiin qol lagu qayilo oo imaamka ama muadinka ama culimadii meesha joogtay ay qaadka ku cunaan hadhowna ay salaad iyo cibaadadooda kalena ku samaystaan taasi waxa ay tilmaamaysaa halka uu inaga joogo iyo qadarinta uu mujtamaca dhexdiisa ku leeyahay iyo sida aanay u muuqanin wax dhiba walidaalk baa madaxdu cunta madaxweynaha kasta Soomaaliyeed ilaa iyo ka ugu hooseeya miskiinka maalqabeenka ilaa iyo ka xamaalka macallimiinta iyo aqoon-yahanada iyo dadka cilmi isbedaya idan waa bulshada dhamme wax ula midashaha ay cabto ayuu xaga kala midiyay bal waxa laga yaabaa inuu meelaha la isku maamuuso uu yahay inaan maamuus kuba dhacaynin hadii aan qaad la keenin arooski shirki odayadii wada hadlayay garti la naqayay imika waqtigan dambe yani waxa weeyaan ma jirtaba meel dad Soomaaliyeed ay isugu yimaadaan oo wadankii kamid ah ilaa iyo waxa muhiim ah in qaad lagu cuno taas waxay tilmaamaysaa halka uu inaga joogo waayo ummadaha kale waxyaabaha daraga u haystaan inkastoo umamku daraga dad badan oo liitay cunaan laakiin ma cunaan dadka sare ama se waa ceeb مثلا wadanka joogta madaxweynuhu heroin cabay hadii la soo qabto ama ra'iisul wasaaraha kokayin liqaya hadii la helo wuu ceeboobaya maalintaas uu shacsilaya waayo waa wax lagu yaqaano tabaqada aan fikirayna ma liidata inay isticmaasho walidaalk buu ceeb yahay in nin muuqda oo ama madaxa ama hantile ama la yaqaan ama caynkani inuu kokayin iyo heroin cabaa waa wax ceeb idan inaga halkii daraga inaga joogo oo halka la ceebaynayo ma joogo ee wuxuu joogaa halkan amaanta mujtamac oo dhan ku xidhiidho ala kulli xaal waxa kala jirta buu baxtiga qaybta dambe waxaad moodaa dadku inay iska dhamaraan oo ma jecla inay sheegaan iyadoo la qabo buu yidhi ay jirto in la rumaysan yahay qofka in badan daa'ima in badan bahalkan cuna in ay raganimadu ka tagto ala kulli xaal marka aan eegno kaasin waa la heli karaa piil yaro kaasin hadii loo baahdo uu dawaba noqdo waa wax fudud oo la samayn karo laakiin waxa ay isku raacsiisayeen in badan oo iyaga kamid ay sheegayaan inuu importance keeno qaad oo ah waxana yiraahdaan ED-ga inuu wax yeelo waa erectile dysfunction inuu sameeyo ama inuu ninku bahalku uba kici kari waayo waxay kala yiraahdaan wuxuu keenaa markuu badsado inuu manida kaadida raaciyo oo markuu kaajayo manidu iska soo daato wuxuu keenaa bay leeyihiin inuu dumarba ka hijroodo oo iska daayo marka hadii la yiraahdo maada ku jirta meel wax ka caawisa macnaheedu ma aha inuu daawo qaad yahay qaadku sidii buu boysinu yahay waxa badan ee ku jira runtii waxaan jeclahay inaan ka soo kaabsano waayo wax badan oo kamid waxaad moodaa more scientifically inayeen oo qofka caadiga aan hore ula soconin ku dhib badan tahay erayo badan oo meelaha ku qorqoran ama nimankan ay sheegayaan si fiican loo fahmo laakiin marka warkiisa soo duuduubna waxa weeyaan maadooyinka qaadka ku jira aan soo sheegnay waxa amino acidsina waa ku jira ascorbin acidkina waa ku jira ascorbic acidki oo vitamin C ga qayb yar kamidna waa ku jira laakiin marka la eego saddexda maado aynu soo sheegnay oo ah maadooyin walafna keena maanka dooriya pressure-ka kiciya wadna xanuun sameeya xanuunada afka iyo ciridka iyo ilkaha sameeya kuwa ninka halka ku sawiran baa kaga filan ninka halka ku sawiran Soomaaliya ee afkala ee qaadka haysta waxa la yiri sawirkan waxa laga soo qaaday museumka Kenya ee Nairobi waxa ku qoran baa la yiri typical Somali waxa ku qoran qofka Soomaaliga ah sidoo weegi tan mid qaad haysto inta abala ay soo sawireen oo Soomaaliyeed oo qoslaya waxa وانا افلا او ay leeyihiin waa typical Soomaaliga ay ku tilmaamayaan ala kulli xaal
baalka kane xanuunada uu keenaa waa xanuuna runtii aad u tiro badan markay maanta ka sheekeynayaan aad u tiro badan waxa intaa dheer intani waa xanuunada isaga la socota مثلا laba mas'ala aan idin sheegaya maanta qaadku heerka uu marayo waxaan la kulmay Dr. Cabdulqaadir Jazeera waqtigii la oran jiray oo Ingiriiska degan wuxuu yiri gabadh Soomaaliyeed ayaa la keenay dhakhtar dabeetana arday jaamacadeed baa loo keenay case study in lagu sameeyo gabadhii ayaa wax xanuun hayaba la garan waayay waa la waday oo gabadhan xanuunkeedii baa la garan waayay waayo gabadhan xanuunka hayay waxaanay dadka caadiga ka fakareen buu ahaa markii dambe baan ku yiri ninkii professorka ahaa gabadhii baan ku yiri qaadka ma cuntaa markaas ay igu tiri buu yiri ha professorkii baa soo eego wuxuu igu yiri maxaad su'aasha gabadha weydiisay yani symptoms kan aad dareentay qaadka la xidhiidha waxaan waa maxay marka waxaan sheegay buu yiri xanuun xoolaha ku dhaca oo bacteria yaro cawska saaran ay keento oo xidha walba beerka adigu dhacamo soo daayo qayb kamida meel xidha ayaan xasuusiyay buu ninka professorka waxaan idhi buu yiri xanuunkaasi ayaan balki eegay gabadhii baa wixii markii la fahmay aan doonayay ayaa la baaray buu yiri baaris laga sameeyay waxa la helayba buu leeyay xidid ama wax kamidi in bacteriyadaasi cawska saareed ee xoolaha ku dhici jiray waxaan bini'aadamka ma ku dhicin ayaa laga helay buu leeyay idan wasa ma aha wax qaadka laga qaado laakiin waxa weeyaan dadka cawska cunaya cawskaas uu saaran yahay iyo waxa ka idan waxa related kala ay aad u tiro badan waxa kala xasuustaa burcamar aan tagay dhakhtar kamid ah dhakhaatiirtii xamar ugu waaweynada qaliinka oo burca joogay markaas yimid ayaa uu xanuunsaday dabeetana waxa loo qaaday Dubai dhakhtarkii baa baaris lagu sameeyay waa dhakhtar weey baaris baa lagu sameeyay baaristii waxa ay ka heleen bay yaabeen oo u yimaadeen ninkii waa dhakhtar waxa ku yiraahdeen wariyo maxaad cuntay wuxuu yiri waxa ma cunin cunna caadi ma yana wax kale ma cunin markii dambe wuxuu sheegay waxa sheegay buu inuu bahalka qaadka cunay waxay ka heleen jirkiisa DDT caadiga ahay ayaa laga soo saaray marka dhakhaatiirtii waxay garan waayeen ninkan iyo DDT-ga waxay soo keenay isaga markii dambe sharxay Ethiopia maadaama ay nuqaad consumption-kii uu tiro batay qaadka consumption-kiisa uu tiro batay wax badan baa la cunaya waxa la cunayana waa bahalka caleemihiisa yaryara waxaana la rabaa gu iyo jilaal iyo dayrbada in la cuno therefore waa in qaad badan la inoo beera si qaadku uu bato pesticides iyo chemicals iyo wixii ay ku afuufayeen baa ciidda ka batay idan waxay isticmaaleen xataa DDT iyo dunida mamnuuca oo laga laynayo pesticides iyo green kan yar ka cuni lahaa ee DDT ku dareen laakiin de markuu qaadku yimaado ciidana ma maydhmaydhe bahalkiyo DDT-giisa iska lumbunika dhakhtarkii cunay markuu cunayna wuu sakaraaday in DDT laga soo helay waxaan uga jeedaa labadan xanuun ee imka aan sheegay ee kan Dr. Cabdulqaadir Jazeera uu sheegay London qofkan laga helay xanuunkan xoolaha ku dhaca iyo ninkan DDT-ga laga helay dhakhtarka labaduba ma aha xanuun direct qaad ugu xidhan laakiin waxa weeyaan milyoogi qaadku hadda halka uu marayo wax ka ratimo waxaan leenahay waxaynu u baahanay bulshadeena inaynu waxa kan geedkani wuxuu yahay Soomaali wali may baranayna inaynu baro wallahu a'lam billahi tawfiq صريحة ارتضاها ذو الجلال فاتبع هدي النصيحة ترتقي نحو المعالي